السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad asxaabteeda youtube-ka maxamed qiyaad ku xiran. waxaan la hadlayaa dadka oo u soo dhigay sponsorship-ka ay weydiiyey noo soo dhigay dhaheen kiiski walaal waa nii soo dhigay linkigaa nii soo dhigay waxaana dalbada anigii u soo noqonaysiin laba anaa isu wicaysiin aniga weydiinaysa saa loo dalba linkigaa nii soo dhigay meesha ku qorantay wixii lagaa rabo shaqada oo wadanka kan dadka dalbanayso meeshaasaa gali linki marka ku dhufatid meesha kore waxay jirtaa oo Canada citizen and refugee ku qoran or jobs ku qoran meeshaasaa ku dhufanaysid waa gelaysid wixii oo adiga aqoonna wadatid ma shaqada waxa qaban kartid oo fikrad haddaa dhakhtar noqon kartid haddaa maqaayadaha ka shaqayn kartid haddaa ka shaqayn kartid jidadka haddaa meel shaqada lagaa raba meesha lagu soo qoray aad geli kartid waa dalbani marka haddaa lagu saacideeyey oo shuruudihii adiga lagu soo diray kuu saacideey aan kuu soo dalbay aan ku dhahay dalbo maxaa aniga ugu soo noqonaysaa ani su-aasha waa kuu saaciday haddana waan kula hadlay mar labaad waay videoga hadda soo duubay hadda daqiiqadahan soo duubay la soco shuruudahan iska rabo oo dowladda Canada soo dalabatay waa inta haysatid waa aqoonsigaaga shahaadadaada wixii aad soo shaqaysay waxa qaban kartid waxa aqoon leedahay waxa wadanka kusoo kordhin kartid aa lagaa rabaa ma aha waa iska socda waa dalbana no taasina shuruud kale waay ayadana shaqooyinkaas kuwaas aad rabtiin iska soo geli rabtiin shaqadaasina waxaa kuwaas wata dad baa wata oo jobs oo wadamada ka soo qaada oo viisada dadka siinayo ayagu ku keenayn 2 bilood ku fiirnaa intaad shaqayn kartid oo wadankan shaqo qaban kartid waa kuwaasina waa kuwa maqaayadaha waa sida KFC-da waa sida McDonald's-ka waa sida oo sabwayga waa sida oo meelaha badan yihiin ma fahamtay kuwaasaa u badan oo dadka viisada siinhay 2 bilood ku fiiran haddaa 2 bilood shaqo qaban karin way ku tirtiraan way ku celinayaan waa kuwaasna hadda tiktok-ga soo dhigi doonaa waa shuruudaha ayukan waxay kaa rabaan ayuka aqaanaan waa la xiriiraysiin website-kooda tegaysiin waa la xiriiraysiin kuwaasna gooni waay tanna waa dowladda Canada waa tan coddo la hadlay dowladda Canada waay tan kalena waa sida Tim Hortonka McDonald's-ka iyo kuwaas lamid waa kuwa viisada dadka bixinayo awal hindiday keeni jireen iyo Philippines iyo waxaasay keeni jireen way ka wareejiyeen wiilata dadka wadamada kale ka rabaan Yurubta oo meel bay joogaan way dadaas rabaan inta keenan viisa siinay marka kuwaasna waa gooni tanna waa gooni kuwaasna tiktok-ga soo dhigi doona waa uga hadli doona taasna ma fahamtay waa shuruudo badan waa ayukan marka walaalayaalow su'aalahan laga rabo dadtaas rabtiin oo Tim Hortonka McDonald's intaan soo qaadi rabtiin taasna waa ni soo siina website-ka intaan soo tiktok-ga ni soo dhiga ma fahamtay youtube-ka ma tiktok-ga ni soo dhiga kana waa tii dowladda Canada watana ka hadlay linkiga aan soo dhigay oo leeyahay dalbada ka faa'iideysta fursadiina ma fahamtay waa kala mid markaas fahamno marka waxa ni soo diro dadaala inka wixii dalbada ani intaan wax ni dalbo oo wixii ni soo raadiyada wixii la qabto waa qalad waay waa ni soo waa ni raadi waa ni soo heli gala dadaala fursadaada ka hel kule dad badan ka faa'iideysto malaa ma fahamtay marka dadka aniga weydiinayo soo noqonay linkiga soo dir kan soo dir WhatsApp meelaha uu warin ma aha no linki waxaas wuxuu ku jira youtube-ka dalbo meesha videoga u dambeeyay soo gelinayd kaasuu ku jira linkiga meesha messengerka tagay pinka wiilata ku qabtay waa gali waa ku dhufani linki soo dir linki meesha ku jira